بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. dhammaantiin aad baan idin wada salaamayaa asxaabteyda qaaliga ee ku xidhan channelkaygan Farxaan Xasan Dilbaax. dhammaantiin inta subscribe samaysa aad bay wada mahadsantihiin. maanta waxaan insha Allah jeclaystay inaan idila wadaago applicationkan hortiina yaala. waxaa la yidhaahdaa anti-theft alarm baa la yidhaahdaa. applicationkan haddaan hordhac idinka siiyo waxyaabo idinka caawinaya waxaa ka mid ah in adiga oo taleefankaaga oo kalaaba dabka gelisay qolka kalaad qabatay adoo qol ku jira in hadduu qof taleefankaaga dabka ka saaro wuxuu bixinayaa hoon ama qaylo sida ambalaska oo kale sidii ogaateen taleefankaaga dabka laga saaray ilaa inta passwordka laga furayo. password baad ku xidhaysaa ilaa intaad passwordka furayso ama aamusayo. iyo waxyaabahaas ugu sii fogeyn oo howlaha yar buu idin qaban doonaa insha Allah. applicationka waxaad ka helaysaa stoorada wax laga soo dejiyo sida Aptoide oo aan hore usoo dhigay cashar ka hadlaya Aptoide horena usoo dhigay insha Allah. qofkii garanayn Aptoide muxuu yahay maxaa lagu qabtaa cashar kadib ugu noqdo ama Google-ka caadiga aad ka raadayso waad ka helaysaa. linkiga qaybta hoose description-ka ayaan idin soo dhigay. waa kan qaybta description-ka markaad ugu dhufato linkiga description-ka qaybta description-ka yaala qayb bukan buu keenayaa. bartan baad ka rogan kartaa markaa hore u soco hoos soco ka wadaa bartan baad ka dejin karaysaa. download-ka hadaad ku dhufato waatan download oo download ka dhisan karaysaa si toos ah. marka haddaan application-ka galo application-ka markaa saa soo kiciso wuxuu leeyahay featureskan labadan feature buu leeyahay application-ku sidaad aragtaan. labadan feature buu leeyahay application-ku sidaad aragtaan. detect when charger is unplugged wuxuu ku leeyahay ogow marka chargerka laga saaro taleefankaaga. iminka tusaale ahaan haddaan chargerkayga soo qaado chargerkayga haddaan geliyo hadda charger iguma jiro laakiin marka saa geliyo chargerka igu jira sidaad aragtaan saasaan ugu xidhay. sidaad aragtaan markaa chargerka geliso mobilkaaga halkaasaad ku dhufan doontaa bartaayar baad ku dhufan doontaa si aad on uga dhigto. ninka chargerka igu jira bartaasaan ku dhufanaysaan on uga dhigo. hadda on weeyaan sidaad aragtaan. sidaad aragtaan sidaad aragtaan wuxuu sameeyey qaylo dheer buu sameeyey. earphone baan hadda ku duubayaa videogan marka earphone-kii oo ka saaray sidaad aragtaan qaylo buu sameeyey. hadda mar labaad ku celiyo tijaabada ka qaado. chargerka hadda iguma jiro chargerkii baan geliyey. hadda calaamadan waan ku dhuftay waan xidhay. earphone-kana aan ka saaray sug. hadda waan ka saaray mobilkiina saas oo kalaabad loogu gelisay meel baa saa u saartay isagoo saa ugu xidhan. weliba qof waa u yimi is yiri chargerka ka saar markuu saa chargerka uga saaro waxa dhacaya eega.
sidaad aragtaan qaylu sameynayaa passwordkaad ku xidhay ilaa laga furana ma aamusayo mobilkaas. wax kasta oo la sameeyo ma aamusayo. hala baktiyo hala daaro saasunbuu qaylinaya. xitaa haddii la baktiyo la daaro saasunbuu qaylinaya. qayladaas sameynaya. ta kalena waxa weeyaan tan labaad, qaybtaa labaad weeyaan, oo waa mobilka haddaad meel dhigtay oo qof uu dhaqaajiyo soo qaado ama dhinac u yara riixo aduu qofku soo qaado kalaa iyadana qaylo sameynaya. markaasaa meel u dhigto qofku soo qaado jaajarka mobilka dabkaad geliso meel baad dhigtay ama meel agtaada buu iska yaalaa, marka saa la soo qaado mobilka qaylo sameynayaa. iyadana banaan tijaabo ka qaadno. sida passwordka waxaa lagu xidhay xagga dambe ayaan insha allah kaga hadli doonaa. imika taa markaan saa u xidho dhowr second buu eeg wuxuu ku leeyahay 3 second ee uu ku qabanayo meel saa telefonka u dhigto. markaas jilada saa ugu xidho imika waad aragtaan markaan soo qaaday telefonkaan meel dhigay qayladaasuu sameeyey. imika markaa saa ugu dhufato batanka markaa wuxuu ku leeyahay 4 second mobilka meel saa u dhig. imika saas kale markaad meel u dhigto mobil marka saa meel u dhigto 4 second ku siinayo aad ka tagto hadduu qof saa u soo qaado iyadana cod buu sameynaya qaylaa. qaybtan haddana iyadana xoogaa galno qaybta sittingka haddana iyada xoogaa galno xagga waxaan ka hadlayaa alarmigu qayladu sameynaya noocay tahay. xaggana password baad ku xidhanaysaa si dee qofkii marka uu soo qaado telefonkii oo kale ayo aanu iskaga baktin markiiba codka. password baad xagga ku xidhaysaa. xaggana waa passwordka inta jeer la gelinayo. xaggana dhaqdhaqaaqu ka hadlayaa. xaggana sensitive tuso. qaybtaa u hooseysana waa changing movement sensitivity. waa qofku markuu soo qaado soo qaadka ayuu ka hadlaya mahayba markuu qofku soo dhufto mise aayar u soo qaado mise si yaroo fudud u soo qaado kalaa ka hadlaya. xaggana waa teemiskii waxyaaba noocaasa. waxaan filayaa inahaasuu insha allah uu ku eegi yahay barnaamijku. barnaamijku inta inahaasuu ku eegay insha allah. sidaad aragtaan waa kan jananku. ciddii ku cusub insha allah soo dhawaada. fiidiyoyo fara badan baa ku jira jananka. qof asxaabta ku xidha jananka ayaa soo weydiiyey facebookaga ama meelan kaala soo xidhiidho. facebookaygana waxaa soo gelin doonaa linkigiisa profile linkigiisa qaybta descriptionka iyadana insha allah. qofkii u baahan wax soo weydiiyo laba hab buu igu soo weydiin karaya. qofkii u baahan si fiican si caadiya la hadlana facebookayga qaybta descriptionka ka raadiyo. qofkii kalena commentiga hoose wixii commentiga xagga hoose commentiga kusoo qor videogan. dhammaantiin aad baan idin salaamayaa. walaalkiin Farxaan Xasan Dalbac. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.